xaflad aad iyo aad u ballaaran ayaa lagu qabtay magaalada Liverpool oo ka tirsan dalkan Ingiriiska. xafladaasi oo lagu maamuusayay maalinta qiimaha iyo qaayaha weyn leh ee 1 July oo ah Israaci gobolada Koonfureed iyo Waqooyiga. xafladaasi oo daba si weyn loogu soo abaabulay magaalada Liverpool waxaa runtii ka soo qayb galay dadweyne aad iyo aad u fara badan. xafladaasi oo ay soo qaban qaabiyeen gabdhaha reer Liverpool iyagoo oo run ahaantii ay muujiyeen halkaasi ka muujiyeen farxad reyn oo doros aan la koobi karaynin. gabdhihii halkaasi isugu yimid farxadooda ka muuqatay gabdhahaasi waxay ahayd mid aan la malayn karaynin. waxaabay u boholyoobeen dalkii hooyo. munaasabadan 1 July ee caawa laga xusayo magaalada Liverpool run ahaantii waxay ahayd mid aad iyo aad u xiiso badan. halkaasina waxaa ka soo qayb galay dadweyne fara badan oo ku nool magaalada Liverpool, rag, dumar, caruur, cid walba halkaasi ayaa caawa ay ku qaateen damaashaadkii iyo dabaaldegii lagu dabaaldegayay maalinta weyn ee 1 July. halkaasi waxaa ka soo jeediyey khudbado qiimo iyo qayle ayaa halkaasi laga soo jeediyey iyadoo oo run ahaantii khudbadahaasi ahaayeen qaar aad iyo aad u xamaadsadaysan. bal marka ugu horeysa waxaan jecelahay inaan wax idinka maqashiyo daawadayaal khudbadihii halkaasi laga soo jeediyey oo ay raggii halkaasi yimid ay ka hadleen. ugu horeyntiiba waxaa ka mid ah Cabdi Cali oo isagu halkaasi ka soo jeediyey khudbad qayle. khudbadihii oo isdaba joogana sida tan ayay u dhaceen. waxay u leedahay Soomaalida iyo faa'iidooyinka ay u leedahay iyo wax ay higsanayso iyo wixii laga soo qabtay. anigu waxaan ahaa dadkii maxaan ahay caawa wiil yar oo aan halka jooga baan leekaa maalintii caanka la saaray. waxaan ahaa kuwii nacnacay kala siiyey marba dhinacu yaacay. ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogto dibad iyo gudo meel kasta ay joogto caawa ciidaysa ee ku farxaysa maalintii midowgii gobolada waqooyi iyo koonfur ee caalamka Soomaaliyeed ee kooda turay ee farxadda isugu timi meel kasta ay ka joogtaan. waxaan leenahay ciid wanaagsan. caawa dhammaan bulshooyinka Soomaaliyeed meel kasta ay joogto waxay u dabaaldegaysaa caawadan oo kale inuu dabaaldega ama caawa inuu dabaaldegayno mid lamid ah ayay u dabaaldegayaan taasi oo ah midda kaliya ee diinka ee mideyn karto maanta ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogto. khudbadaha kadib waxaa iyaguna halkaasi runtii aan kaalinta haweenka oo iyaguna ka soo jeediyay halkaasi buraanbaro iyo run ahaantii heeso aad iyo aad loo xiiso geliyey dadkii ka soo qayb galay xafladaasi. waxaana ruhaantii iyaguna halkaasi ka soo qayb galay oo kale dhalinyaro aad u yaryar oo caruura oo iyagu markaasi aan garanaynin munaasabadan laakiin halkaasi inta badan loogu sheegay maalintani qiimaha ay u leedahay shacbiga Soomaaliyeed. waxaa halkaasi lagu jaray keeg ay ku qoran tahay 1 July oo lagu xusayo maalintan weyn. sidaasi ayaa u maqlayseen mashxaradda iyo doroska ka muuqda gabdhaha reer Liverpool. waxay yiraahdeen waa markii noogu horeysay ee aanu aragno amba aanu maqalno xaflad sidan oo kale ah oo 1 Luulyo lagu xusayo magaaladan Liverpool. magacaygu waa Anisa Mahad oo jooga magaalada Liverpool oo kamid ah gabdhaha soo qaban qaabiyay ee xafladda aad iyo aad ayay u weyn tahay. waana ku faraxsanahay maadaama aan hore aan u sameeynin haddana waan aad iyo aad ayaan ugu mahad celinayaa inta ka soo qayb gashay iyo inta soo ganaanutayba. beenka iyo caawa bay isku soo dhow yihiin maalintii aynu calanka iyo xornimada qaadanay ee cadawga dibadda u saaray ciyaar gudkii aanu sameynay waa ka aan caawa xidhnahay. ma garan iminkana waxa weeyaan ilaahay waxaan ka rajaynayaa sidaynu berigii hore ahayn in Soomaaliya isku noqoto waxa xun ku dhex jirana ilaahay ka dhex saaro. wadamaystii waxaan oran lahaa aad baan ugu faraxsanahay xafladan caawa ka dhacday Liverpool oo kooda loogu dabaaldegayo 1 Luulyo. I feel absolutely excited and happy over the moon basically. Thank you so much. Daar Ismail Hajjadan, Universal TV, Liverpool.